Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada akhbaarta channelka. Muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idinku tuso qaabka loo sameeyo UI card-ka aad u jeedaan adigoo isticmaalaya marka HTML iyo CSS. Daawasho wanaagsan. magacaygu waa Maxamed Maxamuud Cabdulqaadir. channelkani waa Caaqil Taj. kanaalka dadku cusubta marka fadlan like saar oo subscribe dheh. waxaan uga hadalnaa marka arrimo ku saabsan teknolojiyada. muuqaalka marka hadaan hore usii gudubno, waxaad diyaarsataa marka folderka aad ugu talagashay inaad projectigani ku qabatid. waxaan diyaarsanayaa marka projectigi, kadib waxaad soo furataa marka code editorka aad isticmaashid. aniga marka waxaan isticmaalayaa Visual Studio. waxaan u doortay Visual waxay tahay waa mid ka mid ah marka code editorada ugu caansan. wuxuuna ka caawin karaa waxyaabo badan oo aanan lahayn kuwa kale, sida extensiono oo aad awood u leedahay inaad soo degsatid si ay code-kaaga kor u sii qaadaan oo macnaha easy kaaga dhigaan qoritaankiisa. marka waxaan inta code-kan ku dhex jirno waxaan aad u isticmaali doonaa waxa loo yaqaan Emmet oo default ku ah Visual Studio, kaasoo ka caawinayo marka laymo badan oo code ah in aad easy aad ku qortid ama hal keyword oo kale aad ku qortid. kadib markaad soo furatid marka code editor-kaaga, waxaad sameysaa marka lama file oo kala ah mid HTML ah iyo mid CSS ah. markaad intaas dhameysid marka waxaad soo furataa marka HTML file-ka. kaas ayaan ku horumarinaa. kuwa hore waxaan dhigaynaa HTML tagiska iyo waxyaabihii noogula baahnaa. marka haddaad isticmaalaysid Visual Code Editor, waxaad sameysaa si aad u qoratid marka basic HTML-ka ama document basic HTML-ka, waxaad taaban kartaa marka si short form ah shift number 1. waxaa kuu fududeeyaa marka Emmet abbreviation-ka oo leeyahay visualka. waad aragtaa marka basic dhan hal mar ayuu ii qoray anigoo taabtay oo kaliya halkii. kadib marka document name-ka iska sax oo magaca aad ugu talagashay ayaad u bixinaysaa. okay, kadib waxaan rabaa in aan soo geliyo marka halkaani laba linki. linkiga koowaad waxaa waaye linkiga caadiga CSS-ka aan lahay aniga. kan kalena waxaa waaye box icons halka aan ka isticmaali lahay marka iconka. okay, kan caadiga ayaan ku hormarayaa hadda. kan caadiga markaad qoratid kadib hal mar browserkaaga aad waxaad ku qortaa marka boxicons.com. kadib waxaad kasii taabataa marka usage. marka waxaad raadisaa marka import the CSS. qaabka CSS-ka macnaha loo soo dhexgeliyo code-kan ayaad soo koobiyeynaysaa marka HTML-ka qaybta CSS-ka linkiyadooda la dhiga ayaad soo dhex dhigaysaa. markaad intaas sameysay kadib waxaad sameystaa marka folderka image-yada aad soo dhex dhigi lahayd. hadday hore inaan sameynaa ku ficneed laakiin waan iloway. okay, markaad sameysatay kadib image shaashada ii yaala ayaan drag kusoo sameynayaa. waad aragtaan image-ka ayaan soo dhexgeliyaa marka folderkaas. waxaad ku furataa marka live server-ka marka wuxuu ka caawinayaa code-ka haddii aad wax ka bedeshid inuu page-ka automatic refresh oo isku diro oo ku tuso marka waxyaabihii aad sameysay. hadda waxaan ku tasti garanayaa marka hello oo kale. waad aragtaan si automatic ayuu ugu soo qormay marka. teeda kalena waxaa fiican inaad markaad isticmaalaysid oo kale Visual Studio-ga automatic cipher ayuu leeyahay inuu on ku ahaado. okay, code-keena ayaan gudaha usii galaynaa. marka waxaad sameysaa marka sectionka waxaa ku xijiyey marka def oo classkiisa yahay card. kabacdi waxaan kusii xijiyey def kale oo aan usoo gaabiyey marka deck. marka waxyaabahan oo aad u jeedaan oo sidaan aan u qoraayo oo online-ka aan ku qoraayo waxaa kuu sahli kara marka Emmet. hadduu code editor-kaaga uusan lahayn Emmet ma umalaynayo marka waxyaabahani inuu sidaan kugu qaban doono. okay, halkan marka line-ka marka enter dhahay wuxuu ii sameeyey marka def oo loo yaqaano deck oo soo gaabiyey decoration. kabacdi wuxuu igu daray 3 spam oo mid kasta classkiisa oo iBox1 yahay. kabacdi ilaa iyo 3 oo ii tiri. iBox1 waxaa waaye icon box magacan iska soo gagaabsaday oo kaliya waaye. boxka koowaad marka waxaan ugu talagalay marka inaan number aan dhex dhigo. box 2 waxaan rabaa marka inaan icon soo geliyo. sideen icon soo gelinaya? linkiga waa haysanaa. waxaad ku laabataa marka page-ka
oo aad linkiga kasoo qaadatay wuxuu leeyahay marka meel oo surgeon ah ani icon aad rabtid halkaas magaciisa ayaad ku qoraysaa hadduu ka mid yahay marka waad isticmaali kartaa hadduusan ka mid ahaynna ma isticmaali kartid markaas markaad website-kan oo kale aad linkiga kasoo qaadatid oo kale iconkiisa marka laba qaab ayaad usoo bandhigi kartaa ama usoo muujin kartaa marka information dheeraad aad kasii rabtid marka tartiib u akhriso aniga qaab kamid ayaan isticmaalaya hadda magac ayaan soo koobiyeysta marka iconka u baahana magaciisa marka halkan waxaa ku qoran marka itag oo raacsiiyey class oo magaciisa yahay bx iyo bx dash magaca oo aad rabtay iconka inaad soo gelisid kadib waad aragtaa marka icon ayuu isoo bandhigay oo message ah teeda kale waxaad sameyn kartaa marka waxyaabaha kale aad ku ogtahay marka inuu iconiskan ama website-kan iconiska inay ku dhex jiraan oo kale ma u baahnid marka mar walba inaad tagtid oo aad soo fiirisid si automatic ah ayaad u samaysan kartaa marka okay sidaas marka iconka labaadna waan kusoo gelinay waxaan u gudbaynaa marka sectionkeena xiga hal mar ayaan rabaa marka inaan ka baxo dhammaan html ka idil waxaan u gudbaynaa marka css ka okay waxaan sameeyay marka def oo classkeeda aan u bixiyay image box kadib waxaan rabaa inaan image ka soo geliyo image tag ayaa taabanaysaa kadib pathka ama halka oo jiro ayaa qeexaysaa marka imagekaaga maadaama imageka aad weyn yahay oo aan isla markaana haddartan aanan rabin inaan u gudbo css ka waxaad samayn kartaa comment iska sii geli markaad soo gaartid css kiisa ayaad commentiga kasii qaadaysaa haddii kale documentiga hadda mar walbo scroll ayuu kaaga baahanaya okay waxaan usii gudbaynaa marka sectionka kale oo xigo sectionkan waxaan ku qoray marka contentiga aan u baahnahay inuu yeeshto marka kaarkaasi sida magacii iyo categorygii iyo descriptionkii marka intaas sectionkaas ugu gudubno waxaan u gudbaynaa marka section kale oo aan ugu magac daray layers ayadana waxaan isticmaalayaa si aan u sameeyo marka imageka waad aragtaan marka waxaan sameeyey div oo loo yaqaano layers iyo laba spam oo meesha ku dhex jirto oo aan kala sheegay layer 1 iyo layer 2 class namekooda marka ayagana sidaan ayaan ugu tagayaa waxaan ka damacsanahay gadaal ayaad ka arki doontiin for decoration oo kaliya leeba marka waxaan u gudbayaa marka hadda css ka waa meesha qurxin lahayd ama website walba qurux badan aad aragtid waxaa ka dambeeyo css kani okay marka waad aragtaan waxaan ku bilaawday marka universal selector ama the whole page selector oo astriga kabacdi waxaan dhahay margin 0 padding 0 iyo box sizing 0 are box sizing border box sababtaan u dhahay waxa waaye wuxuu leeyahay marka any page walba margin iyo padding oo default ah si aad marka aad ugu warqabtid marka marginka iyo paddingka oo pagekaaga leeyahay that's why loo dhahaa marka marginka iyo paddingka hore 00 ka dhig si aad ula socotid marka inta aan kale labadan taag oo kale inta margin ama inta padding u dhaxeeyo hadda marka waxaad ka saacidayaa markaad kuwan 00 tiraadid padding walba iyo margin walba inaad gacantaada ku qiyaasitid qaabka uu kugu habboon yahay marka inaad u dhigatid okay taas intaas ayaan ugu gudbayaa waxaan sameeynaa badiga dhexdiisa waxaan ku dhex qorayaa marka font family-ga marka fontka isticmaalisid aday kugu xirantaa marka ana hadoo kale robot ayaan isticmaalaya oo sans serif ah okay kadibna waxaad sameysaa background color-ka okay kadib waxaad wacdaa marka section widthkiis waxaa dhahay 100 heightkiis waxaa dhahay 100 v height ka dhig oo waxaan rabaa inuu pagekayga scroll onsan lahaanin okay display flexi ayaan dhahay justify content center waxaa u dhahay waxaan rabaa marka kaarka oo dhan inuu centerka imaado justify content centerkana waxaa waaye horizontal ahaan centerka uu imaado macnaa qaab jiif ahaan centerka uu imaado align item center aada asagana vertical ahaan center uu imaado padding oo waxaan siiyay true rim ah rimkana waxaa waaye unit oo css ka kamid ah information badan hadaad ugu baahan tahay marka waad searching gareey kartaa oo wax badan waa kasii ogaan kartaa okay waxaan kaloo usii gudbay marka kaarka class kaloo yaqaan card aan u bixiyay kaarka waxaan u baahanaa marka widthkiisa inuu noqdo 375 pixel heightkiisa waxaan rabaa 460 pixel background color oo waxaan u sameynayaa marka wide ah maadaama backgroundkayga hore waxyar oo wide waxyar dansan ahay border radius 10 pixel waxaad sameynaysaa marka box shadow box shadowga marka always wuxuu qaataa marka laba value ama laba qiimo qaataa qiimaha aad ugu baahantahay marka x axis ama horizontal
marka horizontally inta oo bixi lahay iyo y axis oo taagan vertical inta oo bixi lahay horizontal kana waxa dhahay 5 pixel y axis ka waaye 5 pixel ayaan dhahay 10 pixel gaarsiiyaan lahay blurkiisa kadib RGB balaagan dhahay oo alfahana waxa ka dhigtaa dhahay 0.1 oo macnaha waxaan rabaa inuu aad laciif oo u noqdo oo transparent camal u dhadhabaado 0 ma ka dhigan laakiin 0.1 ayaan ka dhigay okay display flex justify content center align item center and flex direction kana wuxuu sameynayaa justify content hadaaga waxaan idin dhahay wuxuu u xisaabinayaa horizontal laakiin hadeertaani wuxuu isku bedelayaa vertical waxa ka dhigaya marka flex direction column-ka aad dhahay okay hadii wixii information dheeraad ah u baahan tahay marka waa sirji garay kartaa kibacdi waxaan siilayaa marka position relative okay waxaan kale u sii gudbaynaa marka box iconiska ama decoration sectionka and then box icon 1 ka wac okay kibacdi positionka absolute ayaan ka dhigay topka waxa dhahay 1 rim ka soo siko leftiga 1 rim ka soo siko paddingka 24 pixel qaadan dhahay waxyar inuu weynaado raba oo dhinac walba ah okay border radius 50 pixel ana round inuu noqdo u baahana oo circle camal ah okay box shadow marka the same sidoo kale waaye 5 pixel meeshan marka waxa ka dhigtaa 20 pixel waan soo koobiyay marka si fudud soo qoraalkuna ugu fudud okay and then boxka kale wax badan ma ka dawno kan ayaan koobiyeysanaya ay box 2 ku qor meeshaas okay background color ayaan ku soo daray marka waxa dheeri ah waxa background colorka waxaan ku soo daray oo kaliya marka hadda background color oo white ah kadib waxaan leeyahay position absolute inta waaye wixii dhan sidoo kale waa inta kale waa caadigi laakiin waxaad sameysaa marka topka kale 50% ka soo siko soo centerka camal ugu soo dhawaado and then right ko kale 1 minus 1 rim macnaha outside ka camal wax banaanka u kaarka banaankiisa camal inuu yaalo camal ha u muuqdo at the same time inuu kaarka ku dhex jirana ha u muuqdo camal minus 1 rim ayaa banaanka u baxa marka okay waxaan u gudbaynaa marka box iconki saddexaad wax badan ma u baahna marka inaan ka badalno topka oo kaliya waxaad ka dhigtaa meesha kii hore oo 50% ka ahay kan waxaad ka dhigtaa 63% okay waxaan u baahanaa marka iconskan inay wacayr hover lahaadaan hover ayaan u diyaarinayaa marka saddexdooda marka waxay ka wada siman yihiin span and then background ko kale colorka waa ka dubaya oo colorkan ayaan siinayaa hexadecimal code-kan waxaan leeyahay markii hover la sameeyo colorka ama muuqaalka iconiska ay yeelanayaan white ha noqdo maadaama oo backgroundka oo blue yahay and then waxaan usii gudbayaa marka image box backgroundka aan kii hore siiye camal ayaan siinayaa iconiska siiye okay height waxaan rabaa 100 pixel widthka 100 pixel border radiuska 50 pixel okay border oo waxaan u baahanaa marka oo circle-kan ku wareegsan 5 pixel solid ah oo dark blue ah and then box shadow si automatic ah copy ku dheh okay waxaan u baahanaa marka hadda maadaama image box-ka ii diyaarsan yahay inaan image-ka comment-iga ka soo qaado haday comment geliyo maadaama uu aad u weynaay hadda comment-iga ayaan ka qaadayaa waad aragtaan marka kaarka banaankiisa ayuu u baxay zaid ayuu u weynaa marka okay waxaan u gudbaynaa marka CSS-kiisa marka widthkiisa 100% ha aado height 123 position absolute maxaa khaldan okay waxaan ilo marka image box-ka inaa position-kiisa relative ka dhigo marka okay bottom-ka waxaad ka dhigtaa 0 border radius-ka haddii aan 49 pixel wada dhaho even madaxa xataa inuu ka jaro ayaa laga yaabaa marka waxaan u baahanaa marka labada gees le inaan kada taabto okay border bottom left radius waxaad tirahdaa 49 pixel border bottom right radius 49 pixel okay waad aragtaa hadda marka position fiican ayuu ku fadhiyaa image-ka wuxuu ku dhex jiraa marka boxkiisa oo buluuga oo aan ugu talagalay okay waxaan u gudbaynaa marka hadda content section-ka oo textigan ayaan waxyar inaan qurxino isku dayaynaa okay waxaan ka bilaabaynaa marka name-ka waxaa dhahdaa marka text align center text transform capital mar walba ha ka bilaawdo error walba letter spacing 2 pixel waxyar inuu kala sigta ayaan u baahanay okay kan kale aan u gudbaynaa marka category-ga asagana sidoo kale text align center letter spacing 5 pixel text transform capitalize ayaan ka dhigay oo font weight-kiisa waxaa waaye 500 ayaan ka dhigayaa dagray oo waxyar kan kale inuusan la mid noqonin
margin bottom waxaa rabaa tourim inuu paragraphka iska sakiyo nameka aad ayuu u yeeryahay marka waxaan sameynaynaa inaan magac dheer aan ku qorno meeshaas. Okay, waad aragtaa magac dheer ayaan kusoo bedela marka caaqil taj ayaan ku qoray. Okay, waxaan rabaa marka in aan paragraphka marka wax ka bedelo ama descriptionka waxaa sameysaa marka padding oo 10 pixel ah kor iyo hoos, lefty iyo right kan waxaa u baahanahay tourim, and then waxaa sameysaa text align center soo dhexda u imaado font size-kiisa oo idil waxaa tirahdaa warname ka dhig, and then waxaan u gudbaynaa qaybta decorationka ugu dambeeyay oo layerska ahay. Okay, the whole layer ama containerka ama dhifta weyneed waxaad ka dhigtaa marka balaceeda 375 the same size-ka oo lahay waaye kaarka. Okay, height-ka waxaa ka dhigtaa 50 pixel, display flexi, justify content center. waxaan rabaa marka waxyaabaha soo socda hadhoodii inuu horizontally center oo u imaado, waad arki doontaa marka. And then waxaad soo qabataa marka layer 1ka width waxaa dhahdaa cal si macnaha calculator loo taagan. Okay, waxaa dhahay containerka weynaa wuxuu ahay ama kaarka oo idil waxaa waaye dhererkiisa 375 pixel, waxaad ka jartaa marka 15 pixel. kan kale waxaan rabaa marka layerkan oo kale inuu kan weyn wax yar oo ka yaraado. kadib height-ka waxaa tirahdaa 50 pixel waaye. background color oo hadda waxaan sameynaynaa color leh si aan positionka iyo qaabka aan ugu saxano hadhoodii white ayaan ka dhigi doonaa. Okay, positionka absolute ka dhig, bottomka waxaa ka dhigtaa -10 pixel, dhehe waxaad kaloo ka dhig box shadow kusoo dar. Okay, z indexkana waxaa ka dhigtaa -3. Okay, kan kalena waa lamid oo kale kan koobiyeyso, kadib bottomka waxaad ka dhigtaa -20 pixel, colorka wax yar ka bedel, kadib z indexkana waxaa ka dhigtaa kan mid ka hooseeyo oo ah -4. Okay, marka width-kana waxaad dhahdaa 375 oo laga jaray 30 pixel, and then magaca bedel marka layer 2 ka dhig. waad aragtaan marka wixii bay habaysan yihiin marka labadii layer aan soo geliyay centerka imaadeen, waxaa ka dhigay waxba justify centerka hadaya sameeyay. Okay, kadib marka colorkooda caadiga u soo celi labadooda. waxaad u maleysaa marka iconka inuu wax yar kor aad jiro. si aan wax ugu bedelno marka waxaad tagtaa marka kaarka hadayna hore aan u sheegay justify contentiga aad u jeedaan kaarka inuu ku dhex jiro wuxuu u shaqeynayaa marka hadda vertical ahaan ama qaab joog ah, maadaama uu awalkiisa hore u shaqey jiray horizontal ahaan. waxa sababayna waxaa ku tilmaamay flex directionka inuu yahay. Okay, kan waxaa ka dhigtaa marka value oo center yahay ka bedel, marka waxaad ka dhigtaa flex end. waad aragtaa marka hoos ayuu usoo degay markaad. Okay, waxaad dib ugu laabataa marka HTML page-kaaga hoos usoo deg marka content section-ka imaaw. markaan aan sameynayay description-kan oo kale ama dhifta description-ka waxaa dhexgeliyay header content-iga. waxaan u baahnaa marka header content-iga hoostiis inaan dhigo kale, taasna iska sax. Okay, muuqaalkii marka intaas ayuu ku egyahay. haddii oo ku cajbiyey ama aad ka heshay ama aad wax ka faa'iiday sii share gareeyo asxaabtaada kale la wadaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.